أنا dadku baahi wax la yiraahdo wallahi billahi tallahi bil saddon keedintaan dab shitay inaan qumaati si ugu gaajabeen kaligayna waana naafana waana qof weyna waa dad badanina waa ila qaba waxaan malaynayaa bil dhowdhow inaanan bil badama shaah mooye oon kale oo muslimiin keena mooye oonan leeyahay ma dhadhamin waxa weeye xilalka ka haya maamulada meeshii doona ma joogane waxaan leeyahay dadka duubka ku xidhay qaar baan dab loo shidin qof kasta waxa weeye reer buuhood lagu dhashay waxaan leeyahay dadka duubka ku xidhay dadka aad mas'uulka u tahay qaar baan dab loo shidin dadka duubka ku xidhay qaar baan dab loo shidin halkani waa kaamka Shangalle oo dhaca waqooyiga magaalada Buuhoodle oo 8 kiiloomitir u jira magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Kaamka Shangalle ayaa waxaa degan dad aad u tiro badan oo ku xidhoobay abaartii soo martay dalka Soomaaliya. dadkan barakacayaasha ee ku jira kaamka Shangalle ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo ayagoona sheegay in ay kaamka ku sugnaayeen muddo aad u badan ayagoona sheegay hay'adaha iyo waliba sidoo kale dawlad goboleedada inaysan wax xuquuq ka helin waxayna qaylo dhalaan u direen cid kasta oo ay ka helayaan caawimo ayadoo lagu jiro xaalad abaareed iyo waliba sidoo kale xaalad biyo la'aaneed ayadu way gaabisay baahidiina way soo korodnay anagu waxaanu isleenahay hay'adaha waa shaqeynayaan oo waa soconayaan wixii reer Buuhoodle iyo qolada odayaasha sheegatay ee meelaha maamulada ah yaa gacanta ku dhigayo waxaanu aragnaa markaanu magaalooyin tagno dumar waaweyn oo bakhaar haysto cadcad oo kaadhan qaadanaya marka waxna waa kuwaaso ilmaadeeradooda bakhaarada la haysta yaa hay'aduhu u dhiibeeno waa kuwa xaquuqdeeni waxaan leeyahay dadka duubka ku xidhay dadka aad mas'uulka u tahay qaar baan dab loo shidin dadka duubka ku xidhay qaar baan dab loo shidin marka waxa weeye cid kasta waxa weeye islaana ama hawshan qusaysan waxaan u sheegaynaa dadkaas waa dad islaama waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah ayay u baahan yihiin ilaahay baa gurmad leh waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah waxa weeye waxbarashadaas iyo biyaha adag mooyeen wax kale ay qabaan ma jiraan hooygooda waa la arkaa caafimaadka waxa weeye waa low soo gaara dadka waad aragtaan oo ugubkayagii iyo gabdhahayagii aan kala xishoon jirnay fiyaaraha waa kuwa sidaa u tuman waad aragtaan haddiinu xaragaanno ma keenneen hay'adaha waxaa leenahay naga soo gaadha dhallinyaradu waa taa hablihii waa taa sodooyihii waa kuwa xabuka oo jiifo oo badan baa jira markii aan ka soo dhaweeyay anigu gurigaaas ka soo kacay qoyskayga subaxaas ka farxo badan baa ka muuqanaysay caagada lagu wareegayay weel baa lagu wareegayay baahi badan baa taala hooy la'aan baa taala waxaanu doonaynaa hay'adaha caalamka kuwa lookalka kuwa dawliga kuwa mataqaanay gobolkaba in dadka il raxmad lagu dhowro hay dadku waa fidiyaya waa baqtiyaya reer Shangalle waa fidiyaya gurmad dhaqsale la soo gaaray gurmad dhaqsale wixii danaynaya gurmad dhaqsale waxa jirta tii ka sii xumayd ee ka sii darnayd oo ah tii raashinkii dadku cuni lahaa ummadda halka joogta waxa laga yaabaa inaanay saakay iyo shalay iyo bishan iyo bish ka horeysay qoysaska qaarkood inaan dab laga shidin Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle